jumlad ay dadkeennu inta badan adeegsadaan oo ah Soomaali Maxamed, taasoo micnaheedu yahay in Soomaalidu tahay kuwa raacay rasuulkeena suuban ee Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Waa sax inaan nahay dad Islaam ah oo qaatay diinta Islaamka, balse su'aashu waxay tahay ma dhabbaa in aan raacnay dhaqankii rasuulkeena maadaama aan magaciisa ku lamaanino keena Soomaalinimo. Aan u soo daadegno xaqiiqada. Nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxaa loo yaqaanay al-aamin, taasoo micnaheedu yahay inuu ahaa mid aamin ah. Wuxuu aad uga soo horjeeday qabyaaladda, cadaalad darrada, musuqmaasuqa, isla weynida. Bal aan maanta hoos isu eegno ka Soomaali ahaan, ma dhabbaa inaan diidnay wixii rasuulkeenu diiday ee xilligii jaahiliyadda la samayn jiray? Been ayaynu isu sheegnaa, waan iskala qaybinaa, waan istakoornaa, laandheere iyo laangaab. Sidaa oo ay tahay waxaan iska aaminsannahay muslimiin wanaagsan in aan nahay kaba soo tagtaa oo waxaan isugu yeernaa Soomaali Maxamed. Soo uma eka inaynan been u sheegayn caalamka kale ee xitaa aan nafteenna been u sheegayno. Islaamnimadu ma ahan qabyaalad, mana ahan hadal ee waa sida aad ula dhaqanto dadka kale, gaar ahaan kuwa daciifka ah, kuwa aan waxba haysan iyo kuwa aan kuga haybta ahayn. Waxaa soo koobaya xadiiskii rasuulkeena ee ahaa in muslimku yahay kan ay muslimiintu ka nabadgalaan afkiisa iyo adinkiisa. Haddaad taageerto musuqmaasuq, qabyaalad ama cadaalad darro, ma tihid qof raacay waddadii rasuulka ee waad ka leexatay. Rasuulkeennu wuxuu yidhi, naga mid maahan qof qabyaalad dadka ugu yeeray, u dagaalamay ama darteed u dhintay. Waa inaan joojinno matalaadda oo aan bilowno in hadalkeenna iyo ficilkeenna is yeesho. Waa inaynan mar dambe ka been sheegin shakhsiyadeenna dhabta ah. Naftaada muraayad ku eeg maanta. Isweydii, aniga dhab ahaan miyaan raacay dhaqankii Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, mise magaciisa ayaan iska sheegtaa oo noloshii casri jaahiliyada ayaan ku noolahay? Mas-uuliyaddaada qaado, qalbigaaga nadiifi oo daacad ka noqo. Haddii aan doonayno isbeddel, wuxuu ku bilowdaa runta aan isu sheegno. Islaamnimada dhabta ah waa habdhaqanka wanaagsan. Barnaamijkan daqiiqadaha kooban ujeedkiisu waa inaan korno, waa xasuusin ka timid qalbi looguna talagalay qalbiyada. Haddii fariintan ku taabatay, fadlan la wadaag dadka kale oo u baahan inay maqlaan. Aan iska kaashanay in ummadeenna noqoto mid tusaale u ah ummadaha kale oo aan baabi'ino dhaqamada xunxun ee diinteenna ka fog ee ka Soomaali ahaan aan ku suntarnahay, kuwa ay ka mid yihiin qodobada aan kor ku soo xusnay. Magacaygu waa Xasan Nuur, tan iyo kulanti dambe. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.